libaxyada aarka waa kuwo aan la qiyaasi karin caradooda iyo dibicixumadooda, sidaas darteed 6 ilaa 8 isbuuc ay libaxyada goosha ama hooyada waxay aad ugu taxadiraan ilaalinta cagabururida ay dhalaan, maadaama libaxa aarka uusan jeclayn in dhashooda ay la joogaan ama looga tago. gooshu waxay ku naasnuujisaa cagabururida meel walba ay isleedahay way ku nabadgeli karaan, sida buuraha dushooda, dhagaxaanta dushooda ama goobaha cawska uu ku yaryahay. 2 bil kadib cagabururidu waxay diyaar u noqdaan inay hilib ku walimaystaan, waxayna diyaar u yihiin inay hooyadood ay la qaraab tagaan, laakiin iyagu ma ahan kuwo wax dilan kara oo hooyadood ayaa ugu yeerta kolkii ay micyaha wax ku listo. abuurka alle oo mucjiso ah, libaxyada golasha gaar ahaan kuwooda hooyada waxay si guud u wadaagaan barbaarinta dhashooda, waxay wadaagaan raashinka ay cunayaan, naasunuujinta iyo koriisimaha cagaburiyada inta ay ka gaarayaan abeydinta ama naaska joojinta. haddii hooyada goosha la dilo ama ay baktido, goosha geeriyootay walaasheed ayaa u istaagtaa barbaarinta cagaburiyadaasi oo walaasheed ayaa markaasi naasnuujisa. cagaburiyada koriisimahooda waxaa qayb ka ah cayaarta iyo boodboodka. cagaburiyadu waa inay mar walba ahaadaan kuwa la socda hooyadooda si ay u fahmaan sida loo ugaarsado. waa inay isku dayaan inay eriyadaan wax walba oo markaasi ay isleeyihiin waad ka adag tihiin, laga bilaabo quraanshada ilaa iyo shimbiraha, ku daro xitaa daanyarada loo yaqaan baabooniska. sidaas darteed cagaburiyadu waxay inta badan si dhaqso ah ku bartaan sida loo ugaarsado noocyada ugaarta, kuwa halista ah iyo kuwa waaweyn iyo kuwa fudud ee la ugaarsan karo iyo waxyaabaha la midka. mararka qaarkood hooyada goosha ayaa cagaburiyada waxay u keentaa ugaar aad u yar oo aysan dilin, kadibna waxay dhasheeda ay u ogolaataa inay ku bartaan sida micyaha loogu liso ugaarta markaasi ay doonayaan in ay dilaan ama ay cunaan. libaxyada aarka inta badan ma jecla cagaburiyada inay arkaan, oo mararka qaarkood cagaburiyada aysan dhalin waa ay ka taqalusaan haddiiba ay fursad ku helaan, laakiin marka ay yihiin kuwa iyaga ay dhaleen way u adkaystaan dhibkooda, inkastoo mararka qaar gacan kulul ay la tagaan. haddaba cagaburiyadu marka ay hooyadood ay ogaato inay wax uun ay dilan karaan, waxay markaasi ay bilowdaa in wax yar ay ka fogaato halka ay dhasheeda ay joogeen, iyadoo markaasi aaminka ku qabta inay yihiin kuwa baxsan kara ama isdifaaci kara, wixii iyaga naftooda halis gelin karaana ay markaasi ilaa ay xad ay iska difaaci karaan ama ay ka dhumaalaysan karaan inta iyada ay ka maqan tahay. cagaburiyadu marka koowaad ay dhashaanba waa kuwo aad u yar, indhahoodu waa kuwo xiran 2 ilaa 3 isbuuc, xitaa ku daro isbuuca afraad si fiican waxba uma arkaan. sidaas darteed 6 ilaa 8 isbuuc ayay xanaano gaar ay kaga baahan yihiin hooyadood. cagaburiyadu markay dhashaan waxay halis ugu jiraan ama ay u beylahan yihiin inay weerar ay ku soo qaadaan shimbiraha, masaska iyo xitaa dhurwaayada iyo kuwa kale ee micyaha wax dara. sidaas darteed hooyada goosha ayaa inta badan ka fogaanin oo badqabkooda aad ugu warhaysa.